usoo kala tartamaya Kismaayo Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadalkaaga waxa ku jirta 4 sano doorasho dhacda waa ku waafaqsana inta hadal ee aad tiri 90% waa ku waafaqsana laakiin intii baad ku xadgudbaysaa adaa ku xadgudbaya inta 4 sano waa in doorasho dhacda waa sax doorasho kama dhicin Jubbaland madaxweynaha ahayd waad wareejisay maxaad ku wareejisay doorasho dhacday doorasho ma dhicin waxa dhacay maxaan ku ilaahdaa wax alla waxa aad sheegtay ee xadgudub oo dhan ba halka ka jira waxaadna rabtaa xadgudub inaad xalaalayso waxaad rabtaa inaad boob iyo khiyaamo xalaalayso mana xalaalayn kartid hadda timaado lagu fasaxi lahaana oo intaad timaado aad caleema saari lahayd saaxiibkaaga horena waxba uma kordhinaysa waxna uma kordhinaysa in lagu celiyaabo magac iyo sharaf laga yaabo inay ku tahay waa ku ixtiraamayna shacabka Jubbaland uma baahna benzin inaad ku soo shubto haddaad imanayso sidaas ka qurux badan inaad u timaadee dameero wado warkaa waa ka soo horeeyay warqadaada ka soo horeysay aad ku taageertay Axmed Madoobe hadda maxaad sheegi intuu baad ku celin Soomaa madaxweynaha rabtaa waa isaga iyo ragga kale la midka ah madaxweynihii hore Xasan Sheekh kamid yahay iyo kuwa kale faraha badan ee maxaan ku yiraahdaa badii iyo dhulkii iyo cid cirkiiba hore u gatay waxaad rabtaan oo Soomaaliya rabaa inaan u sheego madaxweynayaal bay rabaan 20 inay u tartamaan waana qayru mas'uuliyad hadda ku shaqeynayaan inay doorasho aan sax ahayn ay dhahaan waa sax ayaguna taas oo kale rabaan inay nagu sameeyaan waxaan rabaa inaan u soo jeediyo odayaashaas Kismaayo waad iman kartaan waa magaalo Soomaaliya laakiin sida aad ku imaanaysaa si ka duwan baa la rabaa inaad ku timaadaan haddaad odayaal tihiin idinkoo odayaal inaad timaadaan baa la idinka rabaa haddaad maxaan ku idhaahdaa si kale oo qaraabo salaan oo imaanaysaan inaad u timaadaan laakiin siyaasadaha iyo waxa aad la wareegaysaan farmaajo doorasho idinkaga adkaaday intuu idin la tartamo doorasho idinkaga adkaaday mana idinka baryay 4 sano inuu xukumo meesha waana dhamaatay suga hal waalanaysa shacabka hal la kiciyo carruurta hal la kicina waa waxa aad ku hadlaysaan baawarka aad hadda ka hadlaysaan waa baawar baagiisa dambe oo qabiil daaranya waxa sida Soomaaliya kama shaqeeyaan shacabkana ma marna habaabin kartaan waxa idin soo jeedinaynaa hatta timaadana waxba soo kordhinaysaan benzin u baa ku soo shubaysaan haddaydan imaaninna waxba soo kordhinaysaan laakiin sharaftiina maanta meel bay u dhacday dhulkay ku dhacday waxa laga yaabaa anigu rag badan oo aan saaxiib ahayn oo aan taageeri lahayn inay ku jiraan laakiin maanta haddayba sharci darro taageerayaan soo madax igu noqon ninkaas oo barito oo maartay xil ugu dhiiban shacabka Soomaaliyeed oo arko marxaati ka noqdo Jubbaland dadkii siyaasad iyo shacab iyo odayaal ku filan baa joogay in arintooda xaliyaan waxa kharibayana wuxuu faragelintiina banaanka mar walba faragelinta banaankana waxaan u baahanahay in ay dib uga istaagto Jubbaland inta waxaan ku darayaa annaga isbedel doon ahaan day one maalintii ugu horeysay ilaa hadda waxaan u qaylinayna war waxaan waa la wada leeyahay la joojiyo miis la isugu yimaado hal la wada hadlo doorasho la wada leeyahay la qabto intiiba waa la diiday dhagaha laga fariistay waxaan sheegnay doorasho la wada leeyahay hadii dhici weydo doorasho la kala leeyahay inay dhici doonto waa dhacday caleema saar la wada leeyahay haduu dhici waayo mid la kala leeyahay waa dhici Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo ragga kale la midka ah idinkoo Kismaayo jooga ama Kismaayo dhibaato inaad ka abuurtaan ha u imaanina waxaan rabaa inaan beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jubbaland baa u sheego wixii ka yimaada ayaga qaadi doona mas'uuliyadeeda Jubbaland bay isku dirayaan si kala fogeynayaan baasin ku sii shubayaan maxaan ku dhahay siyaasadda 20 ay rabaan inay u isticmaalaan waxaan u soo jeedinayaa nimankaas odayaasha saaxiibadaya hadday wanaag u imaanayaan dariiqa wanaaga ha soo maraan hadday rabaan fawdana Jubbaland fawdo uma baahna in ku filan bay haysataa waxa kale soo haray waxay tahay 20 baad u socotaan doorasho 20 haddii doorashada Axmed Maxamed Islaan halkaan uu ku afduubay aad taageertaan Maxamed Farmaajona doorashadaas oo kale u qabsan doona idinkoo taagtaagan oo xamar taagan buu 4 sano kale madaxweyne noqon doona ilaa idinka bilaabay laakiin waa in loo soo looqdaa sharciga iyo nidaamka oo la yiraahdo halka hal dhig maxaad u imaan weydeen maalintii doorashadu dhacayso oo marxaati uga noqon weydeen marka aad leedihiin waan xalaalayn ma ogidin maxaa xalaalaynaysan warba ma haysaan
taasi waa intaa. waxaan rabaa shacabka reer Jubbaland inaan la hadlayo odayaashiisa. annaga isbedel doonka haddaan nahay shacabka Jubbaland, dhalinyaro iyo odayaal iyo salaadiin iyo siyaasiyiin gudaha iyo dibaddaba waa noo yimaadeen, waana nala hadleen, waxayna yidhahdeen waxaan rabnaa in la wada hadlo. 3-4 bari u dambeysay markii darbiyada la soo taabtay waa ogolaanay. waxaan nidhi waxba kama qabno in la wada hadlo, principally mabdi'iyan in la wada hadlo waa ogolla. waxa lagu wada hadli iyo sida loo wada hadli iyo meesha lagu wada hadli waa xilligeeda. waxaa muuqata ma idinkaa la idin khiyaamaynayey qoladiina noo timid, mise idinkaa isku dayeen anagana khiyaamaysaan. waa fashilantay arrintaasina. waxaan rabnaa shacabka Jubbaland isagaa isku filan inuu wada hadlo oo xallisto wixiisa. sheekh shariifna uma baahna, xasan sheekhna uma baahna, kuwa kale daba ordayana uma baahna. arrinta dayuuradaha iyo waxa ku saabsan taadar fawda ninkii bilaabay bay dhibaataysaa. fawdada waxaa bilaabay ragga halka joogaa bilaabay, oo sidii saaxiibkay sheegay wasiiradii hawsha qaabilsanaa iyo dad kale oo fara badan ka celiyay meesha. kuwa isbedel doonka ah xamar ku xayiran oo loo diiday inay kismaayo yimaadaan. sayidku ku imaanaysa. waxaan rabnaa marka inaan hadalkayga aan ku soo ururiyo, annagu waxaanu rabnaa reer Jubbaland oo nabada, reer Jubbaland oo walaala, reer Jubbaland oo gacmaha is haysta, reer Jubbaland oo kala qaybsanayn, reer Jubbaland oo doorasho ay wada leeyihiin wada qabsada, reer Jubbaland oo noqda inay iyagu xallistaan arrimahooda. waa ka xumahay markii Jubbaland xaaladeeda loo baahnaa inay reer Jubbaland ka wada hadlaan, waxay noqotay in dad yow kale laga soo kireysto degmooyin kale iyo gobollo kale looga yeedho. shacabka Jubbalandna la xurmeyn waayo. shacabka Jubbaland beel gaara ma aha, waa Soomaali oo dhan. gogasha ayagaa dhigaya, ayagaa wada hadli, ayagaa maxaan ku idhaahdaa hawshooda looga dambayn. laakiin uma baahna in dad gobollo kale looga keeno.